marwooyinka sharafta leh maamooyinkeenna qiimaha badan walaalahay mar waalidkay qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ururada haweenka gudoomiyaha fadhiya fadhisaara fadhisa walaasha Maryam iyo gabadhayaashii walaalahay kale gabdhaha shaqaalaha rayidka iyo gabdhaha siyaasiyiinta ah kulankan oo sida hore loo sheegay aan ahayn kulankii koobaad oo aad ku muujinaysaan dareenkiina waa idin la wadaagaynaa waxaan rabnaa wixii aad tiraahdeen annaga oo ka duulayna waxaan ku faraxsanahay inay hadda siyaasiyiinta ka mid yihiin dadkii dastuurka kumeel gaarka Habar Zahra iyo gudoomiyaha mooshinka ka yaala ay soo wada qoreen 8 sano dadkii kasoo wada shaqeynayay ururada bulshada rayidkana ay ka mid tahay Mama Zahra dhanka shuruucda ay ka mid tahay Soomaaliya maanta marxaladda ay ku jirto haddaan la isyeelaynin cid walba waxay u tahay waadax wax walbaan ka horumarnay social media shalay ma jiro maanta tallaabtii la qaado horay uga jirtaa qofka Soomaaliyeed gudo iyo dabad wuu ogyahay waxa dalkan ka jira marka sina looma dafiri karo sina loogama been sheegi karo dhiilada taagan waa golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ah in uu ku kala aragti duwan yahay mooshinkii laga keenay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanna waa kala aragti duwanaanshahaas laakiin aragti duwanaashihii 2018 AK47 iyo dhashiike laguma muquunin karo intii hore soo martay ayuu qaadanaa jidkaasuu maraa waayo waxbaa noo qoran shalay xoroosaada yaalay maanta xubnihii ku jiray ka baxay xoroosaadkii dib u eegisaa lagu samaynayaa ilaa uu ka imaanayo kii baarlamaanka 9aad yaalay ayuu ku dhaqmaa baarlamaanka 10aad waa wax qoran sharci looma diyaariyo qof dantiis looma diyaariyo kaasaa wax walba ku qoran xoroosaadkaasaa dastuurka fasiraad badan ka bixinayo waajibka xubnaha golaha shacabka ay ku leeyihiin ilaa gudoomiyaha golaha shacabka 275 marka laga reebo mudane xasan sheekh maxamuud xubin sharafeed cod leh oo ka tirsan golaha ayuu 276 ku yahay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda marka laga reebo 275 xildhibaan oo asagana beesha digil iyo marifle sabkalaankiisana oo eelaayaha ka yimid aniguna beesha 5aad sabkalaankeygana uu yaxar ahaan ka iman laakiin shalay annaga codkeenu meesha ku fadhiya codkeygana maanta maalin wuxuu leeyahay value gaar ah maalinna wuxuu leeyahay qiimo ma laha wax dhici kara ma aha haddii lagu saluugana saldanada ku dirar ma aha waa saluugnay 107 xildhibaan ku saluugnay kuwa mooshinka saxiixan ka mid ah habarirtay xildhibaan ubax taliil waxay tiri mooshinkan ayidsanay ma saxiixin iyada iyo kuwo kaloo la midana 195 gaaraya ayaa haddana ogol inuusan gudoomiye noqon dhinac looga bixi karo ma laha waxaa meeshaas yaalla marka hadallada soo yeeraay oo isaga afkiisa ka soo yeeraay koo wuxuu yiri mooshinkan hal xaba ku soo darsada horaan u niri kama filaynin maalinta ku xigtuu yimid waa aqbalay yiri sharci waaye ma dhih waa aqbalay yiri idinka igama reegiyadiina waad ogtiin waa la sii hadlo wuxuu yiri haddana isaga maantadan ugu dambaysa hadalkiisa laba garab waayu yiri garabka kale isagaa yiri baarlamaankiisiyaa qaybsan 200 oo xildhibaana ka soo horjeeda yuu gudoomiye u yahay 75 u yahay mase 76 gudoomiye u noqona
wax dhici kara maaha marka waxaa lagula dhahaa 296 aake iyo dhashiikaad kula ahaane waa kasoo gudubnay annaguna kuwa aakayaasha iyo dhashiikayaasha wataa haweenkeeniyo uma nihin waxaa soo xiga wuxuu yidhi maanta hadalkiisa ugu dambeeyey taladii aqalka sare waaba kala duwannahay golaha shacabka iyo aqalka saraan kalanahay talada golaha aqalka sare golaha shacabka kuma shaqeeyo rule of procedure xeroosaad noo gaara ku shaqeynaa waa waxyaabaha ilduufka ah oo annagii shalay rabnay inuu guddoomiye noo noqdo aan isleenahay maanta meesha hore ma joogo kalsooni xumadana gashay waa waxyaabahaas kusoo darsada haddii kale anaa idinkugu daraayo iyo taladii aqalka sare waaba ishaysanayba aqalka sare isagaa nooga cabanayo sharcigan markuu soo maray nagu aqbali karaan ama nooga hor imaan karaan ee wax ka bedeli karaanaa naga dhexayso wuxuuna yiri hadalkiisa maanta ugu dambaysa waa brofesor waa sharci yaqaan horuu dastuuradii dalka wax uga soo shaqeey maanta inaan salugna xaqaan u leenahay waayo wuxuu yidhi xildhibaanadii meeshinki keenay ilan berri baa shirki la iclaamiyeen waa dambiilayaal wuubana xukumay isagaa eedaysane ah qof maxkamada xukuntaa dambiile la dhahaa idinkuma ka sugayseen marka jawaari dambiile muxuu yahay sharci yaqaanaadteeda waa dambiilayaal hadalkiisii ugu dambeeya ah isagaana xukuma annaga dambiilayaal manihiye waa eedaysantahay adaa eedaysana ah eedina ka garbaxaan leena waxaa kuu soo haray wuxuu yidhi jawaari kalsoonida mooshinkiisa haddii la qaadaayo waxay noqonaysaa golaha shacabka oo la burburiyey ama lasoo weeraray mooshinkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu qabtay maalintaas maxaa loo dhihi waayey madaxweyne haddaa qabato madaxtooyadii oo burburaysa waayo mooshinkii haddaa qabato ama qarankii oo burburaayo waayo maxaa loo dhihi waayo 2 ra-iisul wasaare iska daba martay 3 ra-iisul wasaare oo lasoo shaqeeyay teeramkii hore 2 ka mida mooshinadoodu qabtay hay-addii fulintaa dumaysa muxuu dhihi waayo oo lasoo weeraray waayo mooshinkaasaa la qabtay waxaan maqli jiray qaalihuursha nin la dhaha jiri jira waa wixii aan maqlay qaalihuursha wuxuu yidhi haddii loo keenay beer soo daaqday wuxuu yidhi lo-daan hal xukumo waxaa laga rabaa dadkii beerta lahaa ay ka daaqeen ushaan oo badar ah inay siiyaan tartiibaa loogu sheega waxaa la yiri qaalihuurshow lo-da beerta daaqday lo-daadii waa adaa iska leh wuxuu yidhi usha la jiifiyaana ballaatay gudoomiyaha mooshinkiisa markuu yimid muu leeyahay la jiifiyaana bannaan qaalihuursha waa kaa diidnay jawaari ma dhahaay qaalihuursha leh qaalihuursha waa ka diidnay xildhibaan dhashiika ku difaaci karo iyo aaka fadhisabana ma jiro cod nimaan ku diri karo col haddaan usoo dumo ayay ka dhigan tahay col nimaan ku difaaci karo col haddaan usoo dumo ha dhahaan aniga waxaan leeyahay col nimaan ku diri karo cod haddaan usoo dumo xildhibaanka difaacaya aragti duwanaanshaha waa ku ixtiraama inuu tayda mid ka bedelan qabo laakiin cod ha ku difaaco 184 haddaan u weyno maxamed sheekh cismaan jawaari waa mar saddexaad oo aan hadlaayo guddoomiye golaha shacabka waa haddii loo helo 15 beri gudahood xeerkaan la siinaayo guddoomiyahan soo dooranayna wax ka dhexeeya intaas ma jirto isbaaro looma hayso damqashada waa idinla qabnaa gabdhaha soomaaliya kuwaas inta lagu buufiyey kuwii shaahiga jidka goda shidaalka gada baatiyada wareejinaya ilmahooda oo dhinac socda ay la shaqaynayaan caseeyayaal ah oo maalin kasta dhibaatada kusoo gaarto haweenkeena waa idinla wadaagayna laakiin waxaad u kala barataan kan dhashiikaa weli maskaxdiisa ku jirto kan qabiilka weli maskaxdiisa ku jiro qofka nin jeclaysiga ku jiro qofka dalqadiisa weli ku jirta iyo danaha gaarka ah annagu ma nihin annagaa shalay keennay 6 bilood ka hor anigaa ka difaacayay maanta anaa wax ka saxiixay codkaygana qof inkiri karta male xuquuq asaasiya oo aniga leeyahay waayo inaan waxna ku diidi karo waxna ku ogolaan karo dad badan waxaa qabaan astaanta qaranka waayo jawaari astaan qaran maaha madaxweyne jamhuuriyadda jira dastuurkaana sheegaayo calanka
iyo sovereignty madax banaanida astaan qaran farmaajo ah hadduu iska dhigayna matiidaan leen ilaa waa wixii qornaa weligiisuu hilmaami jiray hadda ka hore waxaa la yidhi madaxweynihi maqane asoo shirka jargaraynaayo ka deg meesha annaga laftarkeena wax badan soo ilduufna maanta laakiin indheheenaa furan waa diidnay ma yeelin waxaa kuu soo haray marka intaa laga tago mooshinka xaalkiisu waa sidaas aqal sare tala kuma leh mana soo geli karaan qof kasta markaa oo damca inuu waxaas ka hor yimaado cod dood kii ka baxay xeerkay ku qoran tahay imaaw gudaha imaaw ka dood codkaaga ku difaac nooca codbixintaadana ugu codee marka la gaaro haddii allaha awoodda la ogolaado intaasaad ku qancaysiin intaasaad ku degaysiin wixii dheeri ah waa u wada jeednaa idinkana markhaati ka ahaado ilaahayna markhaatiyu ka noqonaa yo laakiin waa waxaan dhacaynin in la is-caburiyo in la is yiraahdo ku jira guryihiina ma soo bixi kartaan haddaa golihii timaadaan waad kala dumaysaa beri ninkii tagay dambiilo waaye dambiilo waxaa noqonaa haddaan ka seexdo qadiyadan baan dambiilo ahay oon dembi ka galay wixii aan dhigtaan dembi ka galay laakiin wixii aan dhigtay haddii aan meel mariyo ilaahay hortiis dantaana ku jirta hadday danta ku jirin dhiiladaas idinma soo bixiseen waxaan dareennay inay danta dalka iyo dadka ku jirto saasaana ku dhaaranay ilaahay hortiisna taasaan difaacaya taasaan ilama dhaaran dhinacayna ninna aboorka kama ridaayo wuxuu yidhi maxamed xaashi dhama qof kastoo anafooda qof kastoo is-afuufa qof yidhaahda anaa ah innagaa ka shirayna lays amaahina maayo ciddadaa uska geeda ha ogaadanimo ilaahay ka sokowna annagaa la awoodda maanta waxaa idin leeyahay codka golaha shacabka oo maxamed sheekh cismaan jawaari ku eedeysan yahay majoritigiisa inay kalsoonida kala noqdeen wuxuuse ku joogi karaa in majoritigiisa ay uga qaadaan hadday uga qaadi waayaan waa asaa guddoomiye noo ah haddii looga qaadane ha qaato ha yimaado ha ku qandho mooshin 170 xildhibaan ayaana u geysay guddoomiye ku-xigeenka koowaad waayo asagoo eedaysana ee ma qaban karo wuxuu rabaa markaa anaa garsoore eh anaa xukumaaya anaa dambiilayaal dadka ka dhigaaya anaa isdifaacaya inta kalena kaaliya dhishiinka igu wada waa ognahay jawaari waa haynaynaa waana ku shaqaysanaynaa ma dhacayso taas jawaari waa difaacaynaa dhishiinka ku difaacaynaa guddoomiye uga dhigaynaa waana ku shaqaysanaynaa taamayeena jawaari haddii la haysanaayo annagaa haysan lahayn laakiin waxaan ku diidnay waxyaabihii uu hareer maray 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 ahayn oo ay ka bilaabato hadda inta booshinkaani qadiyadiisa socoto inta uu sheegay oo galabta ugu dambayso oo ah hal kusoo darsada oo ah waa aqbalay oo ah haddana waa buray expire date hadday tahay 4 sano mandate-keena expire date ka dhigaysaa 4 sano inaan xil idin haynaba ma ah maanta wuxuu yidhi 50,000 oo qof oo ku fadhiyaa halkii cod 50,000 haddiiba expire date uu jiro nagala noqdo kalsoonida annaga isagaan kala noqonay laakiin ilaahay idinkiisna saasaan dhammaystiraynaa insha allah ku qabooba shalayba saasaa loo aaday dalkan waa loo soo friiraaday sacrifice-aan ku noolnahay sacrifice-kaan wadaynaa qof la arkana saacaddiisuu dhimanaa laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaqdimuuna qofna ma loo soo horumarin karo qofna looma baajin karo kamana baqaynaba haddaan ka baqayno qofkii orday baaba america ugu daba tagtay kii yurub tagay ugu daba tagtay meesha odaxda kugu hugayso ay xabadda kugu qoran tahay wiilasheenaa ku dhammaanaya qurbaha habeen kasta baroortooda noo soo yeertaa oo adduunka dabadiisa joog hakal ha laguma dhihin dalaan dalkaaga ahayn waa dareen ku joog maanta waxaan haysanaa dal loo soo wada noqonayo kuweeni shalay aan ka bixin aan leenahay waa laydin imaanooya waa daalnay 2018 2000 aan soo galay siyaasad baarlamaankii shaleedaan ku jiraa AK47 iyo
وحال بقول لنا دشيك اللي بان إديه كرامله عقب ليه عضن ليه هان سوي ما نفقاره فرت اللي يسوبها محل يسوفان محل يسوفان وكل صناعة تاسنا مرخاتك هذا أنت هذا الكلام يهي كله حساب وسلوكني سلطنة قدر معها بدوميا موشن كيال جواري ساسان لي هدي اللي بسلوك سلطنة اللي قدر معها إذن أكوكم الدفاع كرتوا أكوكم الدفاع كرا عد نشيك معها أكو 47 معها دبجح معها عد هالكوكم الدفاع أنا كنا عد كنا لنا هاي أنكل سوني ده دردا عن وكيل موشن كاسا ما تصحي وبالله التوفيق ورسن يا ورسن يا عاف ما تصنع سكوبنا وبالله التوفيق